maansadan yar waxaa la dhahaa qandaraaska ibliiska waa heshiiska ay ku wada jiraan dadka Soomaaliyeed iyo ibliisku qandaraaska ibliisku uu la qaato insaankee aadanaha ku qaldaayo qoomba waa si u gaadho Soomaali waa u qabyaalad waa heshiis qoto dheer oo qarniyaalna dhignaayo waa qasaarin adduunyo qabriga ku cadaaban wax xiriirka u qaybsan qaabilsan oo la fariisto qandaraaska saxiixa siyaasiyiin qabqablaa iyo kuwa qaafada sheegto dabadeedna u qaybsha bulshadaas u qafaalan qodobadiisa u doorliyo qoraalkiisuna waa rag qabuurta la geeyo qaadir waa hore oofshiyo qabiilkiina ku faana qaladna maaha midaasuyo in qabiil la ahaado qorshe weeye ilaahay isqolaysi colaadsha u dagaalama qoysas qoqob oo dhulka qaybsha isna quursi nabcaad oo qaarna yaan laga guursan madaxdiina qalfoofkiyo salaadiinta quweeyo qatanaanta ka dhowra qaryaankiina dhagaysto gabagiisana qaad quwadiina dhiskeediyo qoryo doora lahaado qayliyo isku buuqo qanaaciina ahaado ninka reer quraclay ah iyo qaydar dhashiisa ama qaarshe cidiisa idinkoo dir qaroona waxba yaan laga qaadan qallafsanaanta ogaado naxariista qodeeya qawaaniin la wadaagiyo qaranyaydan lahaanin quraanka kii ku tiraabee aynu qaadano sheega qadaco iska diida ninka qowlkan ku yeeray ileen waa qoladaas oo qatalaya tolkaaye wiil laydinka yeelay in qabiil la ahaadee qofkii beesha ka bayree ka qallooba tolkiise shirka qayb ka ahaynee qaadhaankana diidi doqon weeye qalloocday dunida qaarad ma jirto qowmiyadiina cid ka qaaya wanaagsan dhiiranaantiyo qaabka qabweynaantiyo tooqa qalanjooyin haweenka dhaqankiina qurxoon ee qallibaadka ilaasho ku qanco abid haysta qud horjooga dadeedoo waysla qaadanay maaha shaydaankii baa leh sidaas waa u soo tiriyay waysla qaadanay soo maaha waa horjoogayaashii markaas iyaguna leeyihiin haa ibliiska qarsoonow qaadanoo talintaadoo qalinkaanu ku duugnay weligeed Soomaaliya heshiiskaasaa ka jiray ibliisku oo qandaraaska kula galay nimankaas isimada iyo siyaasiyiinta ah iyaguna bulshada ay u keenaan bulshaduna intaas fulisaa idris makiinad